السلام عليكم isku soo noqod wanaagsan saaxiibada sharafta leh muuqaalkeena maanta muuqaalkiisa ka horreeyay waxaan ku sheegnay famil kastoo Soomaali in laga helayo magaca Maxamed waxaan idin weydiiyay Maxamed wuxuu ku yahay ma uu tahay waxaa la yaab noqotay muuqaalkii hore 500 iyo ka badan oo qof inay comment soo galeen kuwaas oo sheegay Maxamed wuxuu u yihiin ama uu yahay taa beddelkeeda waxaa kaloo jira magac kale ee Soomaalida aad isticmaasho magacaas oo ah Cabdullaahi bal hadda aan ku weydiiyo magaca Cabdullaahi maxaa uu tahay ama uu ku yahay waxaan rabaa inaan ogaado magaca Cabdullaahi iyo magaca Maxamed Soomaalida midka u badahiin inaan ogaado hadaba adigoo maadsan commentiga noogu reeb soo dhawaad mar kale maanta waxaan sharxi doonaa film American military science khiyaali ah filimka magaciisu waa The Tomorrow War wuxuuna soo baxay 2021 kahor intaan bilaabin filimka waxaan ku xasuusinayaa haddii aad ka heshay filimaanta noocan oo kale ah in adigoo mahadsan channelka subscribe noo saartid muuqaalkana like saartid ay fikradaada commentiga noogu reebtid intaas waxay tahay dhiirigelin aad iyo aad u mahadsan tahay filimka wuxuu ku bilaabanayaa sanadka 2022 iyadoo Dan uu u socdo xaflad si uu la kulmo gabadhiisa Muri iyo xaaskiisa Amy Dan aabihii waxa uu soo diray Muri kaarka Christmaska laakiin Dan waxa uu ku tuuray qashinka markii uu gudaha ku soo laabtay waxa uu intiisa kala sheekaysanayay cilmiga sayniska oo uu weligii aad u jeclaa iyagoo TV-ga ay ka daawanayaan kubadda cagta ayuu TV-gu qarrimaya silma filana color buluuga ayaa ku furmaya garoonka kubadda cagta taasoo ay ka soo dhaxbaxayaan ciidamo wata suudad madow iyo hub Hart waa hogaamiyaha guutida waxayna sheegtay inay yihiin dad ka yimaada mustaqbalka gaar ahaan sanadka 2021 waxay halkan u timid inay la wada dagaalamaan cadow ku wajahan dunida waxayna sheegtay cadow inuusan ahayn dad uu yahay nool ciraadiyo waxa kaliya ay rajeynayaan ay tahay bini'aadamka badbaadadiisa waxayna codsatay in askarta iyo dadka rayidka ah laga bilaabo hadda la geeyo mustaqbalka oo ay ku biiraan dagaalka muuqaalka xiga warbaahinada wararka ayaa ka hadlaya saldhigyada boodada ee adduunka oo dhan militariga waxaa loo diray mustaqbalka si ay ula dagaalamaan nool ciraadiyada dunida waxay ogolaatay in loo diro dadka rayidka si ay u dagaalamaan laakiin ma badna kuwa ka badbaadaya 7 maalmood ee boodada Dan waxaa ku aragnaa iskuulka isagoo ardayda baraya sayniska waxaan aragnaa Martin oo ah arday doonaya oo kaliya inuu ka hadlo volkaanaha qadiimiga ah Dan wuxuu bilaabay inuu u sheego ardayda sida sayniska muhiim ugu yahay badbaadadooda kadib Dan teleefankiisa waxaa ku soo dhacay fariin sheegaysa in dagaalka looga yeerayo dadka waxay ka daaleen dagaalka waxayna mudaaharaad ka dhigeen banaanka mid ka mid ah dhismayaasha xarumaha dawladda Dan ayaa la sheekaysanaya 2 dumar oo wata dharka ciidanka isagoo ku xiran kursiga ayaa gacantiisa la geliyay mashiin yaab leh kombiyuutarku wuxuu baarayaa xogtiisa wuxuuna soo saaray warqadii dhimashadiisa askartu waxay u sheegeen waqtiga saxda ee dhimashadiisa waana Oktoobar 13keeda 2030 fiiro gaar ah saan hore u sheegay filimka waa khiyaali waxaana ku arki doonaa waxyaabo aan macquul lahayn sida ay mustaqbalka wixii dhici lahaa la sheego oo kale waxaan nahay dad muslimiin ah waxaan ognahay cilmi qaybka in Allah oo kaliya og yahay oo bini'aadam ogaan karin intaas kadib aan sii wadana filimka markii mashiinkii la daaray Dan aad ayuu u qeyliyay xanuunka awgii waxaa loo xiray bir madow oo lafaha la dhex mariyay taasoo lagala socon doono isaga wuxuu haystaa 24 saacadood si uu isugu diyaariyo oo ugu diyaar garoobo tababarka hadduusan imaan ciidanku waxay qoranayaan xaaskiisa iyo inantiisa si ay u dagaalamaan muddo kadib waxaan aragnaa Amy oo la hadlaysa koox dad ah oo ku soo dhaawacmay 7 maalmood ee boodada dadka qaarkood waxaa ka maqnaa gacmaha iyo lugaha waxayna dhammaantood u muuqdaan kuwo niyadjabsan oo naxsan Dan waxa uu soo galay qolka oo si tartiib ah u muujiyay bahashii gacanta ugu xirneed Amy way ogtahay in arrintan halis tahay waxayna tiri aan ka cararno waxayna u sheegtay Dan in aabihii uu ka bixin karo qalabka gacantiisa ku xiran muuqaalka xiga Dan wuxuu aadayaa si uu la kulmo aabihiis oo jooga saldhig diyaaradeed oo duuga aabihiisna waa duuliye way murmeen waxaan ogaanay in Dan hooyadii ay dhimatay aabihiina uu ka tagay isaga Dan waxa uu aabihii ugu yeeray fulay wuxuuna u sheegay inuusan heli doonin fursad uu kula kulmo Muri oo ah gabadhu awoogu u yahay kadib markii uu ku laabtay guriga Dan wuxuu la hadlayaa xaaskiisa oo ka murugaysay inay aragto qalabkii boodada oo weli ku dhagan gacantiisa banaanka ayuu u soo baxay si uu Muri ugu sheego inuu dagaalka aadi doono markale ay ka hadlayaan cilmiga sayniska waxayna u muuqataa mid aad u murugaysan warka uu sheegay waxaa la gaaray waqtigii booditaanka dad shacab ah ayaa saf ugu jira oo u diyaar garoobaya siday tababar u qaadan lahaayeen waxaa loo sheegayaa in nool cireedka ay ka toogtaan qoorta iyo caloosha Hart ayaa u sheegtay in dib loo soo celin doono 7 maalmood kadib waa haddii ay sii noolaadaan waxaan aragnaa dad rayid ah oo buuxa hoolka sidoo kale waxaan aragnaa Charlie iyo Dorian oo ka wada tirsan kooxda R ee uu Dan hogaaminayo sida Dan iyo Charlie ay u hadlayaan waxaan ogaanay in tani ay tahay markii saddexaad ee Dorian uu dagaal galo
Dorian waxaa luquntiisa ugu xiran cidida noole cireedka oo uu ka samaystay silsilad. waxaa loo sheegay kooxda xoogga Ark in loo soo diray si uu u caawiyaan kooxda cilmi baarista ee jooga mustaqbalka. waxaa la barayaa sida u shaqeeyaan guutooyinka boodada iyo in noole cireedka ay nastaan 6 maalmoodba mar. kadib saldhigga dhexdiisa alaarmiga ayaa soo qeyliyey. Hart waxay Dan u sheegtay in shaybaarka cilmi baarista la weeraray waana inay hadda tagaan. dabadeed dadku waxay qaateen qoryahooda oo cabaysteen una diyaar garoobeen booditaanka. saqafka kore waxaa ka dilaacay koronto buluuga waxaana korkooda ka furmay albaab midab leh. dadku aad bay u qaylanayaan markii la daaray mashiinkii booditaanka, laakiin salam filaan ayaa mashiinkii wax ka khaldameen. Dan waxa uu muuqdaa mid cirka ka soo dhacaya. dadku way qaylinayaan waxayna ku soo duldhacayaan dhismayaasha, qaar kalena dhulka ayay ku dhacayeen. Dan wuxuu ku duldhacay barkad waana caadi asiga oo waxba ma gaarin, laakiin dadka qaarkiis ayaa nasiib u yeelan inay sii noolaadaan maadaama ay shub iyo buro ku duldhacayeen. waxaan meel walba ku aragnaa dhismayaal badan oo burbursan oo holcaya. waxay u eg tahay dhammaadka adduunka. waxay maqleen noole cireedka oo sameynaya qaylo cabsi leh. meel kaloo xero ciidan ah waxaan ku aragnaa gabar yar iyo askar kooxdeeda ah. waxay weydiisay waxa khaldamay waxayna ku guulaysatay inay Dan kala hadasho raadiyaha. waxay u sheegtay inay magaalada duqeyn doonaan waana sida keliya lagu joojin karo noole cireedka. gabadhii waxay Dan ku amartay inuu hogaamiyo dagaalka iyagoo isku dayaya inay raadiyaan oo badbaadiyaan kuwa jooga shaybaarka sayniska ee u dhow iyaga. waxay u dhaadhaceen waddooyinka halkaas oo Nuur iyo Robert loo xilsaaray inay sii raadiyaan bahalada. dhanka kale kooxda Dan waxay ku sii jeedaan dhismaha shaybaarka. gudaha waxaan ku aragnaa daaqado burburay iyo biro yaab leh oo gidaarka ku dheggan. Dorian ayaa ka gooyay mid ka mid ah cidyaha noole cireedka oo dhintay wuxuuna sheegay inuu xasuus ahaan u haysan doono. waxaan aragnaa koox cilmi baarisyaal ah oo ka laalaada saqafka iyagoo meyd ah. Dan wuxuu la hadlay xarunta waxaana isagay kooxdiisaba loo diray inay shaybaarka ka soo qaadaan daawooyinka yaala. waxyar kadib Dan oo aamusnaan ku hogaaminaya kooxda ayaa Robert jaraanjarada hoosteeda ku arkay qaar ka mid ah noole cireedka. waxay weerar adag ku soo qaadeen kooxda. Dan oo noole cireedka la dagaalamaya ayaa waxa u soo gurmaday oo badbaadiyay Dorian kaasoo noole cireedka qoorta ka toogtay. waxyar kadib kooxda waxay u soo baxayaan bannaanka halka noole cireedka uu qaylinaya kuwa kale si ay u soo weeraraan kooxda. waxaan aragnaa kuwo badan oo magaalada dhex yaacaya oo ka soo baxaya dhismayaasha. diyaaradaha cirka ayaa duqeyn doona goobta 60 ilbiriqsi kadib. waxaana Dan loo sheegay in aan loo dhowaan meesha qiiqa guduudan ka shidan yahay sababtoo ma aha meel ammaan ah. ciidankii kooxda u soo gurmaday ayaa waxaa weerar ku soo qaaday oo baabiyey noole cireedyadii. Dan iyo kooxdiisa waxay weerar ku qaadeen noole cireedyadii taasoo ay ku laayeen bahalo badan. Dan ayaa isku dayaya inuu badbaadiyo Robert laakiin kooxdii waa la soo weeraray mar kale. Nora iyo Robert way joogeen oo waxay la dagaalamayeen makhluuqa iyadoo Dan iyo kuwa kale ay u carareen goobta ammaanka. diyaaradihii duqeymaha ayaa yimid waxayna tuurayaan bambooyin kuwaasoo ay ku qarxinayaan goobaha. Dan iyo Charlie waxay ka soo tooseen teendho caafimaad dibadda ayayna u soo baxeen. waxay la kulmeen Dorian oo ah badbaadaha kale oo keliya ay ka haray kooxdii. Dorian wuxuu u sheegay inuu u dhiman doono kansarka 6 bilood gudahood laakiin wuxuu doorbidi lahaa inuu dhinto isagoo dagaalamaya. waxaan ogaanay Charlie iyo Dorian in dib loo diri doono. Dan waxaa loogu yeeray si uu ula kulmo gabadhii ka hagaysay raadiyaha. Dan wuxuu ogaaday in gabadhan ay dhab ahaantii tahay gabadhiisii Mori maadaama la joogo mustaqbalka sanadka 2021. way weynaatay gabadhii hadda waa madaxa kooxda Air Force iyadoo waqtigeeda u hurtay sayniska. waxay la soo baxday koox waxayna u sheegtay Dan inay soo qaban doonaan boqorada noole cireedka. waxay ku jirtaa god hoostiisa waxayna aad ugu weyn tahay kuwa kale. boqorada waa furaha lagu helo sida loo sumeeyo oo loo dilo dhammaan noole cireedyada kale. kooxdu waa diyaar sidaas darteed waxay ku duuleen kooxo helikabtar ah. Mori waxay Dan u sheegtay in dadku ay cunto u yihiin noole cireedka gaajaysan. waxayna u sheegtay in markii ugu horreysay ay ka soo muuqdeen ruushka laakiin aysan ka soo muuqan dayax-gacmeedka. helikabtarka ayaa soo gaartay godad korkooda waxaanu aragnaa niman xargo sita oo isku dayaya inay soo saaraan boqorada. dhulka oo dhan waxaa yaala lafo. waxaan aragnaa boqoradii oo weerartay nimankii. waxyar kadib Mori iyo ragga qaar ayaa godka soo galay si ay u caawiyaan. kooxda waxay isku dayayaan inay boqorada soo jiidaan oo ay geliyaan qafiska. wax badan oo ka mid ah noole cireedka ayaa ka soo qulqulaya buuraha si ay u caawiyaan boqorada. haddaba
daan waxa uu ka soo degay helikobtarka oo wuxuu seynta ka jiiday boqoradda iyadoo oo muuri wejiga ka qaniin rabto si unbay u maareeyeen inay boqoradda qafiska geliyaan helikobtarku waxay la duushay qafiskii ay boqoradda ku jirtay koox noole cireed ah ayaa u duulay helikobtarka dhankeeda laakiin helikobtarku waxay la baxsatay boqoraddii meel walba waxaa ka socda dagaal iyo qaraxyo iyadoo muuri iyo daan ay jiib ka galeen oo ay ka carareen cadowga jiibta daan ayaa wada muurina waxa ay saaran tahay jiibta dusheeda waxayna duqaynaysaa oo la dagaalamaysaa bahaladii muuqaalka xiga helikobtaro ayaa boqoradda geenaya saldhig weyn oo badweynta ku yaala kadib shaybaadhka waxaan ku aragnaa boqoradda oo lagu xirxiray silsilado iyo kombiyuutarro daan iyo muuri way wada shaqaynayaan iyagoo oo sameynaya tijaabooyin badan waxay isticmaalayaan cilmigooda sayniska si ay u ogaadaan sida loo sumeeyo noole cireedyada iyagoo wada hadlaya ayuu kombiyuutarku dhawaaqayaa waxay heleen sun shaqaynaysa laakiin boqoraddii ayaa kacday oo u qaylisay kuwo kale si ay u caawiyaan waxayna markaas gacanta ku hayeen sunta cagaaran si kadis ah alaarmiga saldhigga ayaa yeeray sababtoo ah kumanaan noole cireed ayaa ka soo weeraray badda muuri waxay leedahay qorshe waxayna daan u sheegto inuu dib ugu laabto isku xirka boodada sidoo kale isku xirka boodada waa in laga ilaaliyaa bahlada wax kasta ha ku qaadatee koox bahallaha ayaa jebiyey shaybaarka waxay sii daayeen boqoraddoodii waxayna bilowday inay raadiso daani muuri waxaa geeska gees ah noole cireedyo in badan oo iyaga ka mid ah ayay toogteen oo ay xataa ku guulaysteen inay gubaan boqoraddii taasoo ka daba tagtay oo dhaawacday muuri si xun ayaa loo dhaawacay laakiin waxay isku dayday inay daan siiso sunta cagaaran waxayna u sheegtay inuu ka tago iyada si lama filaan mar kale ayaa lasoo weeraray noole cireedka ayaana hoos u jiideen muuri daan ayaa gacanta ku dhegan isagoo markaa isku dayaya inuu dhex galo noole cireedyada muuri darteed ayaa si lama filaana dib loogu soo celiyey isku xirka boodada isagoo aanay gabadhiisa la socon kadib markii dib loo soo celiyey haarti waxay aragtay daan oo haysta suntii cagaarneed wuxuu u sheegay inay tahay inay mar kale sameeyaan isku xirka boodada si ay u soo celiy gabadhiisa waxay u sheegtay war xun oo ah in isku xirka boodada uu jabay oo mar kale ma aadi karaan mustaqbalka daan wuxuu eegayaa jaarli si uu arko inuu sidoo kale dib loo soo celiyey muddo kadib daan waxa u muuqdaa mid naxsan oo wuxuu mar kale la kulmay xaaskiisa gurigoodii ayay aadeen waxaannu aragnaa muuri oo yar intay isku duubtay aabbaheed ayuu asagana madaxa ka dhunkaday dabadeed daan ayaa u sheegay xaaskiisa wixii dhacay wuxuu kala hadlayaa siday gabadhoodii u ekeed una ahayd gabar geesiyada wuxuu kaloo u sheegay in markii ugu horraysay noole cireedka laga helay ruushka daan wuxuu sameeyey qorshe wuxuuna dooriyan kula kulmay baar weli ciddidii luqunta ayay ugu xihan tahay waxay u qaadeen ciddiyihii jaarli oo weydiiyey daan haddii uu yaqaan khabiiro foolkaana ah daan oo dhoola cadaynayaa wuuna ogyahay halka ugu socdo fasalka dhexdiisa waxaan ku aragnaa daan iyo labada nin ee kale oo la hadlaya martin waa wiil aad u caqli badan oo ku faraxsan inuu caawiyo daan wuxuu ogaaday meesha uu makhluuqa joogo waxaa jira hal qof oo keliya oo ka caawin kara inay u duulaan ruushka waana aabbihii daan wuxuu aaday aabbihii si uu la kulmo wuxuuna ka codsaday inuu caawiyo hart ayaa kooxda ku soo biiraysa iyadoo sun badan wada muddo kadib waxay ku soo degeen barafka waxayna ku baxeen mootooyinka barafka kooxdu waxay hoos u sii maraan godad dhulka hoostiisa waxayna heleen meel khaas oo barafka ku dhex jirta daan ayaa duleeliyey meeshii wuxuu u sheegay jaarli iyo aabiis in makhluuqa uusan nolol kaga baxsan daan iyo kuwa kale waxay arkeen qol ay ka buuxaan noole cireedkii waxay ku dhex hurdayeen ukumo waaweyn kooxdii ayaa sunta ku shabtay qoryo kadibna waxay ku dhufteen qaar ka mid a noole cireedyadii taasoo ka dhigaysa inay aakhirkii dhintaan noole cireedyadii kale qaar ayaa soo toosay oo dibadda u soo baxay dorian wuxuu ka dambeeyaa walxaha qarxa wuxuuna siinaya daan ciddidii weyneyd jaarli iyo daan aabbihii ayaa dilay qaar ka mid a noole cireedyadii baxsaday dorian ayaa ku qorxiyey markabka hart iyo noole cireedyo badan oo gudaha ku jiray laakiin nasiib xumo boqoraddii weyneed way baxsatay daan iyo aabbihii way dabagaleen kadib daan ayaa cududda kaga dhuftay cirbad sun ah waxayna bilowday inay dhimato si kastaba haatee weli maysan dhiman oo way sii dagaalamaysaan dabadeed daan ayaa suntii cunaha kaga muday oo buurta korkeedii ka soo laaday dhulka ayay ku dhacday oo aakhirkii way baabaaday oo dhimatay filimku wuxuu ku dhammaanaya daan oo ku soo laabtay guriga oo muuri baraya awoogii waxaa rajaynaya inaad ka heshay muuqaalkan fadlan haddaa ka heshay ha iloobi inaad muuqaalka laag saartid janalkana subscribe saartid waanu ku mahadsantahay daawashadaada mahadsanid